aad muhiim u ah waliba gaar ahaan ummadda aan ka dhalanay aan u wada baahannahay. khudbaddu waxay ka hadlaysay wax lagu magacaabo social relationships and communication skills oo ah qaabka aad ula macaamili lahayd ee wanaagsan aad ula macaamili lahayd bulshada aad la nooshahay, saad u kasban lahayd dadka, saad uga fogaan lahayd dadka inay caro iyo dagaal iyo dhibaato inay idin dhexmaraan, saad haddii qalad uu dhaco aad u sixi lahayd ayay khudbaddu ka sheekaynaysay. waana arrin diineed, waa akhlaaq diinta islaamku ay ammaantay, qur-aankuna lagu sheegay, axaadiista nebigana lagu sheegay. laakiin nasiib daro environmentiga aan ku soo kornay ma aha environmenti qora ama aan ku soo barannay social skillskaasi. waxaa lagu soo koray dhammaanteen inteena badan environmenti oo qofka waalidka dhahaya facaaga iska soo dhici, facaaga iska dhici, ha ka soo ooyin, cadkaaga soo gooso. caruurtii lama soo barin qaabka wanaagsan bulshada ay ula noolaan lahaayeen, siday dadka u cafin lahaayeen, hadallada wanaagsan ay isticmaali lahaayeen, sida haddii khilaaf uu dhaco loo xalin lahaa. inta badan laynama soo barin. waddanka aan ku noolnahay social skillskaasi iskuulaadkaa lagu dhigaa si loo helo bulsho isjecel aanan isdulmin. saan ka aragnayba dadka aan la noolnahay maanta. halka annagana iskuulaadkana laguma dhigo, dugsiyada aan tagnana qur'aan lafdigaa lana baraa keliya, aan micnihiis xitaa aanan ku jirin. marka walaalayaal waxaa ka mid ah social skillska wanaagsan ee bulshada aad ku kasban kartid. waxaa ka mid ah in ma arkaysaa qofka aad si fiican u dhegaysatid. haddii uu qof kula hadlayo inaadan taleefonkaaga soo qabsan, aadan isku mashquulin, inaadan wax kale ka fakarin, qofkaasi xishmada u muuji sidaad dhegaysatid, hadalkiisa hadal aad ku darsatid. qofka markaa wuxuu u arkayaa inaad qadarinaysid. laakiin qofkiioo kula hadlayo haddaad taleefon la soo baxda ama wax kale aad ku mashquushid, qofka cuqdaduu qaadaya, wuxuu aaminayaa inaadan agtiisa muhiim aadan ka ahayn. laakiin si qofka qadarin oo u dareemo, xiriirkiina u wanaagsanaado, qof hadduu kula hadlayo taleefonka jaabka geli, wax kale ha ku mashquulin, taleefon ha qabanin, haddaad qabanaysana codsi weydiiso, haddaadan hadalka inaad dhegaysid diyaar aadan u ahayna ku dheh wax yar, chance yar isii, waqti yar isii. haddii dad hadlaya aad u imaatid sidoo kale ha kala jarin hadalkooda. qof hadlaya hadalka ha ku gooyin, qofka si fiican u dhegayso saad u fahantid, kadibna aad ma arkaysaa jawaab fiican aad u siisda, ama hadalkiisii aad wax wanaagsan aad ogala baxdi. so ilaahay casa wajalla u sheegayba addoommadeeda u bishaareeya u dhahay ilaahay kuwa hadalka markay dhegaystaan wax wanaagsan kala baxa. marka active listening walaalayaal waa wax inteena badan naga maqan. qof baad arkaysaa, waad u sheekaynaysaa, taleefonkiisuu ku jiraa isagana. qofkii marka xanuun buu dareemayaa. taasi marka waan iskala dardaarmaynaa. sidoo kale walaalayaal kelimadda wanaagsan, nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay hadalka wanaagsan waa sadaqo. ilaahayna qur-aanka wuxuu ku dhahay waquuluu linnaasi xusna, dadku hadal wanaagsan kula hadla. hadalka wanaagsan marka meelo badan buu gelayaa. jumladu waa jumlo waasaca, laakiin meelo badan baa la gelin karaa. inta hadda ani aan sheegay in kale ka ballaaran. laakiin waxaa lagaaga baahan yahay adiga inaad mar walba practice garaysid. qofka aad la nooshahay ama qofka aad saaxiibka la tahay ama qofka aad la hadlaysid inaad ka ilaalisid hadal qalbigiisa dhaawacay, noocuu doona hadal ka ahaado. xitaa hadduu qofka qalad sameeyo, qaladka isku day inaad si kale aad u saxdid. aadan nin waad khaldan tahay, qof xun baad tahay, saasaad samaysay, waxaan ma awoodid. qofka niyadda ha ka dilin. hadalladaasi qaldan ee hadallada aad adag ama caayda qofka waa inaad ka ilaalisaa oo aad kula hadashaa mar kasta hadal wanaagsan. qofkaad hadal wanaagsan kula hadashay, xumaani cugdad kuuma qaaday, wuu ku jeclaanayaa. marka inteenii haddii aan practice garayno waxaan soo jiidan karnaa 100,000 oo ruuxaan soo jiidan karnaa. marka waxaa dhalanaysa bulsho isjecel baa dhalanaysa. xitaa haddii qalad uu jiro, qaladka raadso qaab kaleoo ka wanaagsan oo aad u sixi kartid. anas ibnu malik nabiga calayhi salaatu wasalaam 10 sano ayuu u khidmaynayay. anas wuxuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka soo wariyey, weligay wax aniga aan sameeyey oo qalada nabiga calayhi salaatu wasalaam imadii maxaad u samaysay? wax kale uu rabay inaan u sameeyo haddaan samayn waayana maxaad u samayn weyday ma dhihin. waa 10 sano. rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadduu wixii uu hagaajinayana qaab kale uu ku hagaajinayay.
marka waa khuluqa wanaagsan qofka muslimka walaalayaal looga baahan yahay sidoo kale waxaa ka mid ah caruurteena walaalayaal ama dadka aan la noolnahay qofka hadduu qalad ka dhaco waa bani aadam qalad waa ka dhacaya qofka isku day inaadan qofka aadan xishood iyo xanuun aadan dareensiinin oo aad si wanaagsan aad u sixrid qaladka waxaa kaloo ka mid ah walaalayaal waxyaabahan u baahannahay social skillska aan u baahannahay waxaa ka mid ah dhoola caddaynta anaga kitaabkeena inta badan kuma qorna soo maaha dhoola caddaynta waa shay aad muhiim u ah qofka markaa u dhoola caddaysid qalbigaa u qabo weye nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay qofka walaalkaa markaa u dhoola caddaysid inaad sadaqo bixisay la mid tahay waa wax weyn ajir baad ka helaysaa adiga qofkana qalbigiisa way u roonta haddaa qof la hadlaysid dhoola caddayn ku dar qof markaa salaamaysid dhoola caddayn ku dar qofka wuxuu dareemayaa marka inaad xiisaynaysid haddii qofka taa uu dareemana wanaag baa dhexdiina imaanaya xumaan ma jiraysa bulshada markaas xumaanta way sii yaraanaysaa waa waxaan u baahannahay ummaddeena aan ka dhalanay manaahiijta waddanka in lagu daro sida waddankaanba loo sameeyo kitaabkeena ay ku qoran tahay halkaanna curriculumka waddankan way ku jirtaa social skillska laakiin anaga waa nasiib daro meel lanaguma dhigo guryahana kuma barano madaaristana kuma barano waxaan kusoo gebgabinaya walaalayaal mawduuc dheer waa insha allah waan sii wadan doonaa mar kale in qofka uu sameeyo ma arkaysaa si qabow qofka inuu ula hadlo tusaalahaan haddaa wax saxaysid qofka si degan oo qabow inaa ula hadasho qofka aadan ku qaylin qofkaad ku qaylisay waad sii fogaysay un dadka dhexdiisana isku day inaadan qofkaadan ku sixin qofka hadhihin waa khaldan tahay qaab kale raadso ilaahay caza wajal markuu nebi muuse iyo haaruun uu fircoon u diray wuxuu ku dhahay hadal wanaagsan kula hadla fircoon baa la dhahay hadal wanaagsan kula hadla marka qofka waa inaad hadal wanaagsan u raadsataa aadan keenin hadal qofka caragelinaya walaalayaal intaa kadib waxaa dhacaysa walaalayaal qofka haddii hadal wanaagsan oo qalbigiisa farxad gelinaya aad kula hadashid cadaabaddii xitaa qofka qalbigiisa way ka baxaysaa marka insha allah walaalayaal waxaan isu dardaarmaynaa inaan ka shaqayno sidaan ku dhisan lahayn bulsho isjecel oo iswalaashanaya oo iska warqaba aanan cuqdad iyo xumaan aanan dhex oolin insha allah brothers a little announcement before the dua I've been told by the management that there have been some additional costs incurred for these carpets. As you can see, we have got, alhamdulillah, brand new carpets in the masjid. It has been paid off, but these are additional costs. So inshallah, if you can contribute anything, please do it. So as long as this carpet is in here, whichever amount of money you put in it, you get the ajr, inshallah. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا قوي يا عزيز يا جبار السماوات والأرض انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي غزة يا رب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت